waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, taariikhda iyo taariikhyahanadu siday inoo sheegeen, Soomaalidu waxay ka mid ahayd ummadihii ugu horreeyey ee diinta islaamka qaatay duulaan iyo dirir la'aanna ku qaayibay. diintuse waa tan afka carabiga ku soo degtay, Soomaaliduna kuma hadli jirina sidee baa loo baray. fariimaha waaweyn ee ay xambaarsan tahayse sidee baa looga dhaadhiciyey ilaa ay dhammaanteed muslintay. halkan ayaa waxaa ka soo baxday baahi daran oo loo qabo dulucda diinta cid afka ay ku hadasho ugu soo rogta uguna sheegta. nasiib wanaag, xilka sidaas u culus waxaa dhabarka u ritay kana soo dhalaalay culimmadii Soomaaliyeed ee bulshada aan aqoontooda ka hagran jirin. si ay ugu suura gashayba, markii hore waxay culimmadaasi aad u baratay afka carabiga iyo kasmooyinka loogu dugaalo sida naxwaha, sarfaha, gabayada iyo aftahamada. dabadeedna iyaga oo aqoontaasi leh ayay dadweynihii iyo diintoodii isu soo dhoweeyeen markay qur-aankii, xadiiskii iyo fiqhigiiba ay ugu laqbeeyeen af Soomaaligii ay ku hadlayeen. sheekh waliba markuu aqoon istaawiyo ayuu yeelan jiray wixii uu bartay xer uu u gudbiyo. maalin walba salaada subax dabadeed ama goortii midda casar laga baxo ayuu u geli jiray cashar ku saabsan tafsiirka ama xadiiska ama fiqhiga ama naxwaha. kolkolka qaarkood wuxuu u dhexgelin jiray laqbaha qaar ka mid ah gabayadii ay tirin jireen maansayahanadii waaweynaa ee carabtii hore sida Imru'ul Qays, Zuhayr iyo kuwii la'ayniga ahaa. casharkaas markuu u dhammeeyo ayuu danihiisa raacan jiray. markaas buu xerta midka ugu fahmada badani inta kale casharkii ugu soo celin jiray, isagoo adeegsanaya isla erayadii af Soomaaliga ah ee kol dhoweyd wax loogu laqbeeyey. erayadaas ayaa iyaga oo aan qorayn la kala dhexli jiray ilaa ay u ekaadeen wax kasi loo mideeyey, horeyna loogu heshiiyey. waagii dambe ayaa waxaa soo baxday erebixin af Soomaali ah oo isku si looga maqli jiray wadaadka qulunquul ama jigjiga kitaabada ka akhriya, midka xamar ama baargaal jooga, ka baar dheere ama marka ku sugan iyo ka berbera ama bulaxaar loogu xeraysto. ereybixintii xagga diinta siday culimmadii Soomaalidu isu dhaxalsiin jireen aan ku tusaaleeyo laqbaha aayadda 4 iyo midda 5 ee suuradda 7 ee qur-aanka kariimka ah. walladii akhraja almarca fajacalahu ghusaa'an axwa. waxay ku laqbayn jireen huf nebi maxamedow ee bihii daaqa soo ifbixiyey, kol dambana ka yeelay dumaa hoolmay. dumaa waa caws kolkuu engego haddiiba basa oo inta ulul noqda dabka lagu huriyo. hoolmayna waxaa loola jeedaa gubtay. oraahdaas dumaa hoolmay wuxuu sheekhba sheekh dhaxalsiiyaba waxay soo gaadhay Sayd Maxamed Cabdilla Xasan oo iyada oo sideeda ah u adeegsaday gabay ka mida kuwii ugu dambeeyey. baldayay waa gabayga la baxay ee uu ku soo koobay falsafadiisii nolosha iyo waayo aragnimo wixii u kordhay intii uu daraawiish hoggaanka u hayay. dulucda guud ee gabaygu waxay ahayd ifafaalayaasha dunida lagu arkaa in aanay joogto ahayn, isbeddelkuna ha soo daaho ama ha soo degdegee uu kolley lama huraan yahay. oraahda dumaa hoolmay tuducyadii uu sayidku ku daray ayaa waxay ahaayeen nin dalleensan inuu duukhayay doqontuu moodaaye, inkastuu dunqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo, ha u dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaaye. rabbibow dawari kaan lahayn duuyo iyo maale, isagoo diriga jiibsada yuu deeqdhal soo heliye, baldayay marunbuu darfii deeqa caanaha. dumaa hoolmay diir xaalufa oy dooxadii noqotay, marunbaa daliigaha dhulka doo ka soo bixiya, baldayay dunqaaraha baxaa deli ka dheeraan. shaki igama jiro oraahda dumaa hoolmay inay tahay wadaadka maankiisa oraah aan ka bixin tan iyo waagii uu xerta ahaa ee sabbixisma rabbika alaclaa tafsiirkeeda uu baranayay. erayada culimmadii hore ay hirgeliyeen ee Soomaalida ay diinta ku garansiin jireen, haddii aan qaarkood tusaale u soo qaato, waxaa ka mid ah erayga nifaaq oo ah islaamnimo iyada oo aan la rumaysnayn in la rumaysan yahay la sheegto. waxay u bixiyeen kufri calooleed.
ereyga munaafiq oo qofka sidaa u dhaqmo lagu tilmaamo isagana uurka gaal bay u bixiyeen. ereyga jizya oo ah cashuur markay adkaadaan ay muslimiintu ka qaadi karaan ehlu kitaabka laga adkaaday ee la nool, xoolo gobeed ayay odhan jireen. ereyga atayamum oo ah markii biyo la waayo ciidda boor kale ee lagu weysaysto waxay u bixiyeen booraysi ama gogobaysi. ereyga alcasiis oo ka mid a magacyada eebe ee 99 ah waxay ku laqbayn jireen allihii gobta ahaa. al-ashhur alxurum waa 4 bilood oo ka mid a bilaha dayaxa ee muslimku tirsado. carabiga waxaa loogu yeeraa rajab, dulqicda, dulxija iyo muxaram. soomaaliduna waxay u taqaan sabuux, sidataar, arrafo iyo dago. magac kasta ha yeesheena inta bilaha lagu jiro muslimiintu inay duulaan oo dhiig daadiyaani u xalaal ma aha haddii aan iyaga lagu soo duulin. 4taasna bilo saman ayay culimmadii soomaaliyeed xerta u bari jireen. culimmadaas ayaan soo xusuustay dhalaal dhoweyd oo aan dhagaha u raariciyey cajalad sheekh soomaaliyeed uu ku laqbaynayo suuradaha qur-aanka kariimkaa qaarkood. wuxuu fasirayey muuqaalada qiyaamaha midkood aayad ka hadlaysa kuna saabsan sida la yeeli doono dadka aan mu'miniinta ahayn markay dafiraan dembiyadii ay ku kaceen intii ay ifka joogeen. afka inta laga xiro ayaa eebbaweyne waxaa la hadli doona qaar ka mida xubnaha oogadooda iyaga oo dembiilaha ay ku yaaliin ku markhaati furaya. waa suuradda 36aad aayaddeeda 65aade. wuxuu wadaadkii ku laqbeeyey, rabbi wuxuu yidhi, maanta ayaanu sharaynaa afafyaalkooda, waxaana nala hadlaaya gacmayaalkooda, lugayaalkooduna waxay ka markhaati furayaan dembiyadii ay ifka ku galeen. tafsiirka sheekha ma aan qoonsan, aqoon aan ku qoonsadana melihii, waxa aan ku hakaday waa af soomaaligii uu ku soo gudbiyey. waa 3 eray ee kale ah afafyaal, gacmayaal iyo lugayaalo sida uu u yidhi ay ka fog tahay xeerarka wadaraynta magaca ee naxwaha af soomaaliga. aan faahfaahiyo. af waa magac cayntiisu lab tahay oo hal aranla ah, isaga oo kalena wuxuu ku wadaroobaa iyada oo la labalaabo shibanaha ugu dambeeya, labadoodana shaqalka a loo dhaxaysiiyo. sidaa darteed af wuxuu ku wadaroobaa afaf ee afafyaal in la yidhaahdaa waa gaf. waxaa la mid ah koob iyo miis oo koobab iyo miisas ku wadarooba. lug iyana waa magac ay cayntiisu dhadig tahay, isaguna o gadaal laga raaciyo ayuu ku wadaroobaayo wuxuu noqdaa lugo. waxaa la mid a bar iyo baro, dheg iyo dhego, far iyo faro. gacan iyana waa magac cayntiisu dhadig tahay oo ku wadarooba o gadaal laga raaciyo, sida gacan iyo gacno, habar iyo habro, nirig iyo nirgo. sidaa darteed marka gacan wadarteeda loo jeedo gacno ama gacmo in la yidhaahdo ayaa intaana waxaa ku dhan